muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne ayaa si ay uga qayb qaataan gurmadka walaalahooda abaaraysan waxa ay sameeyeen hay'ad khayriya oo lagu magacaabo Gurmad Somali Relief oo deeqdii ugu horeysay oo ahayd 60 qoys raashinkooda isugu jira bur bariis sonkor timir iyo caanaliida ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle guddiguna waxay u qaybiyeen deegaamahan hore deeq loo gaarsiin oo ay ka mid yihiin balikumeer habartiil karqansax dhextaal dhismood iyo isku dhoonka wakiilka hay'adda khayriga ee Gurmad Somali Relief Australia Maxamed Cali Good ayaa ugu horeyn ka warbixiyay deeqdan inta ay ka kooban tahay isagoona sidoo kale sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo taageero u diraysa dadka abaaraysan deeqdan bariis 60 maxaan ku dhahdaayay haaf iyo sonkor 60 haaf iyo caano boode maadaama dadka xoolihii ka dhamaadeen si ay caruurta ugu cadaystaan shaaha maxaan ku dhahaa caano boode dhan 60 maxaan ku dhahdaa daasad oo caano ah waxa kale ku jira timir maxaan ku dhahaa 15 kartoona iyo bur isaguna 60 ah waxaan ugu tala galnay insha Allah taala deeqdaas loo qaybiyo ilaa 120 qoys oo ay kala maxaan ku dhahaa faafaystaan guddiga insha Allah taala ayaa wakiil naga ah ilaahay idamkiisa deegaano kala duwan oo maxaan ku dhahaa magaalada Burtinle oo deegaankeeda lagu yaqaan deegaan xoolo dhaqato ah dadka xoolo dhaqatadiina dadka ugu dhibaatada badan yihiin 150 kiiloomitir oo square ay xoolo dhaqatada isku nool yihiin waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo doonaysa dadkaas inay u soo gargaarto gurmad inay diyaar u tahay tasiilaadka waayo wadamada westernka gaar ahaan jaaliyadaha dibadda ku nool gaar ahaan Australia iyo New Zealand oo maxaan ku dhahaa annagu aanu hadda ka jirno maxamed cabdi kuusi iyo muxiidiin maxamed xaashi oo kamid ah guddiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle ayaa u mahadceliyay dadka muxsiniinta ee deeqdan soo gaarsiiyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa deeqdan ayna soo gaarsiiyeen ururka Gurmad Somali Relief ee dalka Australia magaalada Melbourne khaasatan jaaliyadii ka soo shaqeysay oo dakhligan soo dhiibtay oo raashinkan soo gaarsiisay walaalahooda abaaraysan ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiya leenahay waan idinka guddoonay anoo ku hadlaya afka guddiga abaaraha degmada Burtinle insha Allah taala mid ugu dambeysay aysan noqon inta ay in ka badan walaalihiin la soo gaadhaan insha Allah baahidu waa sideedii abaartina wali way jidhaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay inuu dadkaasna insha Allah taala inay iyaguna idin soo duceeyaan annaguna waa idin ducaynaynaa meeshii ka soo baxday ee jeebkii khasnadii ay ka soo baxeen wax khayr Allah idinku bedelo 60 qoys raashin loogu talagalay oo isugu jira bur bariis sonkor timir iyo caanaliido intaasaanu kala wareegnay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Gurmad Somali Relief waxaan leenahay waxa ilaahay ha idin bedelo بدل خير قبنا الله يدين كسي ماشي أكسر بحسنا وحك خيرنا الله يدين كبدله جزاكم الله خير تطبعهم أو تبعليسن أو صومالي أو مسلم أو ولاليهنا بتسوق جارسيسين qaar kamid ah dadka reemiga ah ee deeqdan ka faa'iideystay ayaa dhankooda u mahadceliyay hay'adda Gurmad Somali Relief iyagoona dadka muxsiniinta ka codsaday in loo soo gurmado waxa ay noo keeneen guddiga degmada Burtinle ee abaaraha deeq raashin oo ay noo soo dhiigtay Gurmad Somali Relief waan uga mahadnaqaynaa oo waddanka Australia degan waa uga mahadnaqaynaa waxa hadda ay noo keeneen waa wax yar dadkuna waa baahan yahay waxaanu ka codsanaynaa inay noo soo kordhiyaan guddiga abaaruhu waxay soo gaarsiiyeen raashin iyo waxa weeye wixii ilaahay biyo iyo baadi wixii ilaahay nooga soo qaaday meesha aan noogu keeneen meeshaas aan noogu soo deeqdan raashinka ayaa ku soo aadamaysa xilli hareeraha iyo kaamamka qaxootiyada degmada Burtinle ay ku soo xaroodeen xoolo dhaqato badan oo abaartu ka halakaysay xoolahoodii guulaysaati jaamaca warbaahinta dawladda Puntland Burtinle